عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararka caalamka waxa ugu waaweyn sanaaduuqda codbixinta ayaa soo xidhmay iyadoo afti laga qaadayo gobolka Kurdistaanta Ciraaq wadamada deriska ah iyo Ciraaqba way ka soo horjeedaan iyadoo laga baqayo in dhibaato hor la dhacdo hogaamiyaha Jarmalka Chancellor Angela Merkel ayaa haleeshay guusha doorashada inkastoo aanay buurnayn xisbiga garabka midig ee fog AFD ayaa guul taariikhiya gaadhay magaalada Hargeysa waxa ku soo badanaya goobaha uu dabku qabsaday waxaanu idin haynaa warbixin ku saabsan dabdamiska Hargeysa codaynta aftida Kurdistaan ee Ciraaq ayaa xidhantay waxaana jira mucaaradad kaga imanaysa awoodaha gobolkaasi iyadoo sanooyinkii ugu dambeeyay Kurdiyiintu doonayeen in ay helaan dal ay leeyihiin dawladda Ciraaq ayaa si buuxda aftidan uga soo horjeedsatay halka dalalka qaarna ay bilaabeen in xidhaan xuduud ay leeyihiin Ciraaq gaar ahaan gobolka Kurdistaan Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa Kurdiyiinta oo soo halgamaya jiilal badan iyo tobaneeyo sano oo ay dhibanayaal ahaayeen waxay ugu dambeyntii soo gaareen halkan waa ololihii ugu dambeeyay ka hor inta aanan afti loo qaadin madax bannaanidooda natiijadu waa ay caddahay maanta oo dhan tirin ayay ku jireen in ka badan 5 milyan ayaa xaq u leh in ay codeeyaan goobaha codaynta waxa ka jiray dareen taariikhda galaya sida halkan looga taageeraya iyo sida looga soo horjeeda meel kasta waa ay siman yihiin gaar ahaan Baghdad رئيس الوزراء حيدر العبادي وهذا الدقنين وكجيدية تلفزيونك أيو كشيغي إن عد كستا أو كورتماد العراق أي وجه دونان عواقب حن إن التفرد بقرار inay cidi qaado tallaabo dhankeeda ah oo dabeetana wax lagu yeelayo qarannimada iyo sharafta dadka Ciraaq mid aan la aqbalaynin oo gobolka oo dhan ka soo horjeedo lamana aqbalayo wixii ka soo baxa aftidaasi markii uu Cabaadi hadlayay ayaa dhanka kale hogaamiyaha Kurdiyiinta Mas'uud Barzani waxa uu qabtay shir jaraa'id oo wax kama jiraan kaga dhigay qatartay arintan bariga dhexe ku keeni karto nuguma jiro dareen mana lihin ujeed dagaal mana filayno taas waxaan rajaynaynaa in kuwa kalena aysan taa qabin oo aysan bilaabin laakiin waa arin aad u adag kuwani waa taangiyada Turkiga oo jooga xuduudda gobolka Kurdiyiinta waa dhoolatus military oo fariin cad ah Turkiga oo Kurdiyiin tira yar ay ku nool yihiin ayaa u arka aftidan qalad weyn waxay sheegeen inay xirayaan xuduudda Ciraaq ee gobolka Kurdistaan Iiraanna horay ayay u xirtay Kurdiyiintuse waxay rumaysan yihiin in taariikhda ay haatan ayaga u hiilinayso waxa ay sheegeen in codayntan ay u taagan tahay aaya ka tashi iyo dimuqraadiyad wax walba oo ay halista noqotana lagama laaban karo dadweynaha Jarmalka ayaa u codeeyay xisbiga CDU ee ay hogaamiso Angela Merkel oo mar kale noqotay xisbigeedu ka ugu weyn hase yeeshee waxa guul lama filaan ah gaadhay xisbiga midigta fog ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo AFD arrintan cusub ayaa gelgishay siyaasadda Jarmalka waa markii ugu horeysay ee xisbiga midigta fogihi uu ka mid noqon doono baarlamaanka federaalka ee Jarmalka sanado badan intii laga joogo Qalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya waxay ahayd habeen niyad jab ku dhaliyay Angela Merkel inkastoo ay Merkel ku guuleysatay doorashada haddana ma ay helin guushii ay rajaynaysay waxaana hoos u dhac ku yimid tirada taageerayaasha xisbiga Merkel taasoo su'aal ka dhalisay aayaha hoggaanka xisbiga natiijada doorashadan ayaa loo aanaynayaa go'aankii ay Merkel magangelyada ku siisay malaayiin qaxooti ah waxba yaynan is-indhatirin waayo waxaynu rajaynaynay natiijo fiican laakiin yaanan hilmaamin in ayna soo marayn 4 sano adag waana sababta aan ugu faraxsanahay in aan iraahdo ololahayagii waxaan ku gaarnay yoolkayagii istiraatiijiga ahaa khibrad iyo waayo aragnimo ayaa saldhig u ahaa ololihii Angela Merkel ku gashay doorashada balse doodaasi ma noqon mid wada qancisa dadweynaha Jarmalka waayo maanta guusha dhabta ah waxaa helay xisbiga aaminsan siyaasadda midigta fog ee AFD xisbigan oo diidan muslimiinta dadka soo galootiga ah iyo midowga Yurub ayaa maanta ku soo biiray golaha siyaasadda Jarmalka
waan raacdaysanaynaa waxaan kaloon raacdaysanaynaa Mrs. Markel dib ayaan ula soo noqonaynaa dalkeenna iyo dadkeenna natiijada doorashadan ayaa sababtay isbeddelkii ugu weynaa ee ku yimaada siyaasadda Jarmalka tan iyo dagaalkii labaad. Angela Merkel ayaa hadda ku hawlan helitaanka xisbiya ay kula shuraakowdo isbahaysi siyaasadeed iyo sidii ay dib ugu hanan lahayd kalsoonida codbixiyayaasha una qancin lahayd dadweynaha Jarmalka. Inkastoo Merkel guulaysatay, haddana xisbigeedu ma aha mid dareemaya guul. faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka gelaya moobilkaaga. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. dalka Zimbabwe baadariga mucaaradka ah Eva Mawerere ayaa la soo taagay maxkamadda iyadoo lagu soo oogay dacwad ah inuu rabay inuu shicibka iyo dawladda isku dhufto. waxaa loo haystaa mudaharaadyadii kal hore halkaasi ka dhacay oo isagu abaabulay. haddii lagu helo xukunkani waxaa laga yaabaa in 20 sano xadhiga loo diro. militariga Barma ayaa ku eedeeyay jabhadda Rohingya ee muslimka ahi inay dileen 28 qof oo ay sheegeen in laga helay xabaal wadareed lagu aasay. waxaana militarigu sheegayaan in dadkaasi ay ka soo jeedeen qowmiyadda Hinduuga. lama xaqiijin karo wararkan ciidamadu 400 kun oo Rohingya ah ayaa ka tallaabay dalkaasi oo Bangladesh galay. Maraykanka ayaa ballaadhiyay xayiraadda socdaalka ee wadamada qaar ay ku soo rogeen iyadoo imika lagu daray Kuuriyada Waqooyi, Venezuela iyo Chad. laakiin Suudaan ayaa laga qaaday xayiraaddaasi. waa markii ugu horreysay ee laba dal oo aan dadkoodu muslim u badnayn la saaray xayiraadda. dibadbaxayaasha Togo ayaa wada cadaadiska ay ku hayaan dawladda. shaqo joojin ayaa dhacday maalintii Jimcihii. waxaa kaloo halkaasi ka socday banaanbaxyo. waxaanu idiin haynaa haddaba faahfaahin ku saabsan awoodda ay dawladdu isticmaasho si ay u caburiso dadka banaanbaxaya. BBC-da ayaa la kulantay nin dhaawacay ay ka soo gaadheen markii uu banaanbaxyadaasi ka qayb galay. Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. kuwani waa dhaawaca dagaalka ay Togo ku doonayso isbeddelka. ninkani gurigiisa ayuu ku dhowaa kadib 3 toddobaad ka hor banaanbax uu ka qayb galay. wuxuu sheegay in boolis darayskooda xiran ay soo weerareen. waxaan dariiqa ku arkay 12 nin oo dirays xiran. way i arkayeen inaan ka imi meeshii mudaharaadka sababta oo ah boodhar ayaan wejiga marsaday. waxaan u marsaday si aan naftayda uga ilaaliyo sunta indhaha kaga ilmaysiisa. gacan bay iila tageen, way i feedheen. ul iyo budh wixii ay haysteen ayay ila dhaceen. mid baa iga tuuray daaqad dukaan. waan baqanayay. dalka Togo oo dhan banaanbaxayaashu waxay doonayaan in la soo afjaro xukunka 50 sano ah. madaxweyne Faqiye Simbe waxa uu talada hayay 12 sannadood. isaga hortiina aabbihi ayaa ka talinayay dalkan yar ee ku yaala galbeedka Afrika 38 sano. banaanbaxyada bil ka hor ayay bilowdeen. 10 qof ayaa lagu dhaawacay ama lagu xiray. ugu yaraan 5 waa la dilay, laakiin taliska weli waa soo taagan yahay. BBC-da ayaa heshay muuqaallo howlgal ay booliska sameeyeen 8 bisha Sebtembar. kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegaya in ciidanka amar lagu siiyey inay dadka handadaan. mar kastoo ay dadku dibadbaxaan ama ka cawdaan taliska, booliiska ayaa garaaca wayna xidhaan. marka aadan haysan xorriyad aad ku dibadbaxdo, ma dhihi karno waxaa jirta dimuqraadiyad rasmi ah. ninkani wax mudaharaada ma tegi doono in muddo ah, laakiin marka dhaawiciisu uu bogsado waxaa ka go'an inuu bannaan baxo ilaa isbeddel muuqda uu ka dhacayo Togo. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay goobaha uu dabku qabsado magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda isku magacawday ee Somaliland. waxaana marar badan la maqlaa codka baabuurta dabdamiska oo u gurmanaysa dab laga soo sheegay meelo gubtay. wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa inoo haya warbixin uu arrinkaasi ka diyaariyay. sanadii ay shaqada bilaabeen ciidanka dabdamiska oo ahayd 2014 ayaa 120 dab oo ka kala kacay gudaha magaalada Hargeysa ay gubeen goobo kala duwan.
sanadkan aynu bishiisii sagaalaad ku jirna tirada dabka ee kacay waxay maraysaa 350 gubasho oo u badan guryo iyo meherado sida ay noo xaqiijiyeen taliska ciidanka debdemisku waxaa masiibooyinkaasi u dambeeyey guri uu dabqabsaday habeennimadii axaddu ay soo galaysay ee toddobaadkan oo 4 caruurihii ay ku naf waayeen hooyadoodna ay dhakhtarka imaka taallo sanadba sanad ka dambeeya wuxuu dabku usii koraya dee magaalada sii ballanaanaysa awal meena lahaan jirin waxaan oo waayaro leyd aad aragtay isdhex yaacsan magaalada dhex yaacsan gaastan guryaha raashinka loo karsado meena haysan iminka ilaa 7-8 dhacdo aan guryaha lagu yeedho leeyahay shoolad ku qaraxday aanu tagnay tii waxay noqotay baalki haantii oo furan ayay istirista inantu xagga naga ka furtay shid markuu saaw shidmana holoc qarax baa sameysay kuwani waa gaadiidka ciidanka debdemisku isticmaalaan oo tiradoodu ay dhan tahay ilaa 13 gaari ilaa 300 oo shaqaale ah oo u tababaran debdeminta ayaa iyaguna ka howlgala haddana dadweyne waxaa jira markay ciidanku dabka deminayaan sheega in ay ka soo daaheen anigu diyaar baan haddii imka sanqadh telefoon noo yeedho waniga wada gashan dharkayga iyagu wada gasheen gaarigii waanu kaxisanaynaa telefoonkaygu waa 9 birsaan u sheegnay laakiin dadweynuhu hadee jeer waxay soo diraan 9 markaan meesha tagnay dhagaxaan nagu shidaan war maxaa noo sheeganaysaan waxay kuna waa soo habsaanteen oo goorma dabku dhacay dee saacad ka hor oo maxaad nagu yeedhiseen 3 dee jinni baad u yeedhiseen dabdamiso ma yeedhane 990 baad nagu yeedhaa waxaa ciidanku ay xuseen inay caqabad ay ka haysato sharcigii debdemiska oo imika hor yaalla golaha wasiirada dhowaana loo gudbin doono golaha baarlamaanka oo aanse weli la meel marin waxaana ay aaminsan yihiin ciidanku inuu wax badan uu ka caawin lahaa xakamaynta dabka iyo sababaha keenaba maadaama uu xeerkani uu yahay kii qaban lahaa dambiilaha dabka sababay Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa caawiyo ciyaarahana xagga kubadda cagta ciyaartooyga u ciyaara horyaalka Ingiriiska Gareth Bale ayaa noqonaya ninka ugu ciyaaraha badan haddii uu ciyaaro ciyaarta kooxdiisa Arsenal ay iskaga hor imanayaan West Bromwich waxay noqonaysaa ciyaartiisii 633 iyadoo rikoodhka hore u haystay Ryan Giggs xalayna Brighton ayaa kaga badisay 1-0 kooxda Newcastle Toner Hemed ayaa goolka u dhaliyay Brighton DVD-yada suuqa madow lagu kala iibsado ee dalka Pakistan waa ganacsi malaayiin dollar ah sanadadii la soo dhaafay waliba shirkadaha qaybiya aflaamtuna dalkaasi kamaba hawl galaan balse waxay u muuqataa in imika ganacsigaasi waqtigiisu soo gabagaboobay kumanaanu iman in boolisku ay ka hortageen ee waxa albaabada u laabay tartanka internetka Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa cajalada badan oo DVD ah oo ay ku duuban yihiin filimo aanan ruqsad loo haysan ayaa halkan lagu iibinayaa sharci ahaan waa qalad laakiin Pakistan ayaa aad looga ganacsadaa loona isticmaalaa laakiin suuqa cajaladahan uu soo xirmayaa suuqa Rainbow ee ku yaal Karachi ayaa mar ahaan jiray suuqa ugu weyn Aasiya ee lagu iibiyo cajaladahan dukaamada waxaa ka buuxay filimo aan ruqsad loo haysan walow hadda dukaamadan badankood dhar ama mobaylo lagu gado 50 लाख आदमी इस पर रोजगार कमाते थे 100,000 oo ruux ayaa halkani ka shaqayn jirtay goobtanna way shaqayn jirtay tan iyo markii cajalada wax lagu duubi jiray haatanna dadku waxay filimaanta ka daawadaan internetka ilaa 2005 waxa Karachi ku yaalay meelo badan oo lagu kala duubo cajaladahan sharci darrada ah Maxamed Daawud ayaa 17 sano ka shaqaynayay laakiin waxa uu sheegay in suuqan uu ku xirmi doono bilaha soo socda markii hore $1 ayaan ku iibin jiray cajaladan DVD-ga hadda kuma iibinno xitaa $0.5 noloshayda oo dhan waxaan ku jiray ganacsigaas hadda waa inaan ka fikiraa waxaan samayn lahaa meelihii la xiray ayaan ganacsi kale laga bilaabin qiimaha kirada dukaamada suuqa ku yaal ayaa hoos u dhacay 10 sano kadib oo faa'iido badan lagu qabay ayaad moodaa in suuqan Pakistan oo lagu duuba cajaladahan uu iska soo xirmayo ugu dambeyntiina caawa dalka Japan waxaa lagu arkay shinni midabkeedu blue yahay koonfurta dalkaasi waxaa tagay meeshaasi dadka dalxiisayaasha ah oo dhan waxaa laga yaabaa in malabkeeduna mala blue yahay intaas ayaan ku soo gabagabanayaa barnaamijkii waa mahadsantiin